kulanti wacan saaxiibayaal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee dalka qodobada ugu waaweyn warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah maasalaad oo saacadaha soo aadan xilka laga qaadayo Sambalool Sheekh oo loo magacaabayo taliska Nisa iyo wararkii ugu dambeeyay sargaal sare oo ka badbaaday qarax xiriirdiisa loo galiyay qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay mahasalaad ayaa saacadaha soo aadan xilka laga qaadayaa iyadoo ay markan u muuqato in go'aan halis ah ay qaateen Xasan iyo Xamza oo ku heshiiyay ninkan la ciiriyo warar hoose oo dhanka wararka ka helayo madaxtooyada Soomaaliya waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamza Cabdi Barre isku afgarteen in xilka laga qaado taliyaha Nisa Mahad Maxamed Salaad oo la sheegay inuu ku fashilmay gudashada waajibaadkiisa shaqo iyo xaqiijinta amniga qaranka xogaha ayaa sidoo kale tilmaamaya in ay Xasan iyo Xamza qorsheynayaan in booskaas la geeyo shakhsi fulin kara danaha bila Soomaaliya kana soo horjeesan kara qorshaha mucaaradka ee Muqdisho ay shirka ku yeelanayaan sida ay noo xaqiijinayaan wararka laga helayo madaxtooyada Soomaaliya madaxweyne Xasan ayaa go'aamiyay xilka qaadista agaasimaha Nisa Mahad Maxamed Salaad madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa isku afgartay qofka bedeli lahaa taliyaha hadda jooga hay'adan waxayna wararka qaarkood ay sheegayaan in laba nin ay ugu cadcad yihiin in Mahad Salaad ay bedelaan taas oo ku aadan in la geeyo Sambalool Sheekh ama fiqi midkood taliyaha Mahad Maxamed Salaad ayaa tan iyo markii uu xilkan qabtay wax badan ka bedelay Nisa inkastoo dhalin badan loo jeedinayay haddana maalmihii ugu dambeeyay wuxuu wajahayay gaabis xooggan dhanka shaqadiisa ah isagoo u leexday dhanka ololaha doorashada Galmudug halkaas oo ka quldareynayo inuu ka qaato kursiga madaxweynenimo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor xogaha kale ee la helayo waxa ay tilmaamayaan in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu go'aan ku qaatay in taliska Nisa uu dhexdhexaad u yahay qorshaha dawladda laguna qasban yahay cagajugleynta mucaaradka sidaas awgeedna halkaasi loo wadaa shakhsi fulin kara damaca bila Soomaaliya taliyaha Mahad Maxamed Salaad oo isagu ku guuleystay in uu sharci u sameeyo hay'adda Nisa 52 sano kadib haddana maanta wuxuu wajahayaa fashil xooggan iyo in bila Soomaaliya go'aan ay ka qaadatay si joogista taliyaha Mahad warar kale waxay tilmaamayaan in bila Soomaaliya Mahad Salaad ay ku qancisay inay kala shaqeynayaan sidii uu ku heli lahaa kursiga madaxtinimo ee Galmudug oo meesha Qorqor looga saari lahaa waxaana si cad loogu sheegay in la dhisayo oo halka la geynayo taas awgeedna uu waayo xilka Nisa xilkan laga qaadi doono guuxa warkan la xiriira xilka qaadista Mahad Salaad ayaa hadda soo xoogeysanaya waxaana wararku ay sheegayaan in shirkad doodlaha golaha wasiirada bari ay ku yeelanayaan magaalada Muqdisho lagu go'aamin doono xilka qaadista Mahad Maxamed Salaad iyo magacaabista taliyaha cusub ee Nisa wasiirada ayaa go'aaminta kadib waxaa la filayaa inay ku dhawaaqaan shakhsiga bedelku noqon doona taliyaha Mahad Maxamed Salaad oo markii la joogo siyaasadda loogu yeero wiilka madaxweyne Xasan waxay hadda u muuqataa in uu waynayo kalsoonida madaxweyne Xasan Sheekh isla markaana uu kaligii micla taagan yahay xitaa Xamza Cabdi Barre iyo Mahad Salaad goor hore ayay kala gurteen oo iskuma wanaagsan sanadihii dambe balse waxay u muuqataa in 2 sano ku dhawaad kadib taliyaha Mahad Salaad xilka Nisa uu waayi doono wax badan ayaa lagu xusan doonaa taliyahan sirdoonka Soomaaliya soo hogaaminayay 2 sano ee ugu dambeysay asiyeeshee waxaa jira dhaliilo kale oo loo jeediyo sida qaabka Nisa u maareeyo iyo qaabka ay u howlgalaan iyo inay yaraatay helidda xogaha sirdoon ee dhanka argagixisada weerarada caasimadda ka geysan karaan dhinaca kale warar kale aan helna ayaa tilmaamaya in Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalool Sheekh oo hadda mudane ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya loo wado booska Mahad Maxamed Salaad ee taliska Nisa Sambalool Sheekh ayaa xilkan hore u soo qabtay taramkii hore ee Xasan Sheekh kii farmaajo balse mar kale in lagu soo celiyo waxay ka dhigan tahay in Xasan uu doonayo taliye adag oo fuliya amarada isagu uu rabo kana soo horjeeso damaca mucaaradka Sambalool Sheekh dadka qaarkood waxay ku tilmaamaan taliye madax adag oo macangaga gacantana ay ka soo horeyso waana sababta xildhibaano badan iyo wasiiro badan wadnaha bartay ugu hayaan in la magacaabo taliye Sambalool Sheekh oo isagu aan kala aqoon siyaasi iyo shacab intuba cid ka soo qalad gashana gacantiisa ula taga in adag la geeyo taliska Nisa waxay ka dhigan tahay in Xasan uu diyaar garoobayo dagaal ka dhana mucaaradka iyo inuusan rabin taliye qabow oo kaamirooyin ka dhuumanaya
waana sababta keentay in Sambalolshe la tago dib lagu soo celinayo kursiga taliyaha nabad sugidda Soomaaliya. warar kale oo la xaqiijinayaa waxay sheegayaan in Xasan Sheekh ay go'aankiisa tahay in bedelmaha salaad bal suuragal ay tahay in sidoo kale booskaas la geyn karo Axmed Macalin Fiqi oo isagu hore u soo noqday taliyaha sirdoonka Soomaaliya haddana wasiirka arrimaha gudaha. isbedelka xukuumadda ayaa la filayaa in booska wasiirka arrimaha gudaha loogu magacaabo Cabdiraxmaan Odowa sidaas awgeed Fiqi laga tuuro taliska sirdoonka Soomaaliya. hase yeeshee marka la isbardhigo Axmed Macalin Fiqi iyo Sambalolshe waa laba shakhsi oo aad u kala duwan. midi waxa uu yaqaanaa shaqada ciidannimo, midna waa uu xoogsadaa oo inta badan wuxuu ku duntaa sharciyada. waana sababta Xasan uu doorbidayo in Sambalolshe uu muhiim u yahay kursigan. hase yeeshee waxaa jira cadaadis kale oo dumjida dhexdeeda ah taasoo Xasan lagu cadaadinayo in Fiqi halkaa uu geeyo, balse isaga iyo Xamza ayaa hadda laga filayaa go'aanka ugu dambeeya ee qalinka lagu duugi doono si loo magacaabo taliye sirdoon oo Mahad Maxamed Salaad bedela shaqadaas adagna qaranka u qabta. ugu dambeyntiina sargaal sare oo muhiim ah ayaa ka badbaaday qarax loogu xiray xeradiisii uu ku sugnaa, taasoo mar kale muujinayso in beegsi gaar ah lagu bilaabay saraakiisha ciidamada. wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in degmada Qoryooley ee gobolkaas uu qarax u badbaaday taliyihii ciidanka deegaanka ee degmadaasi. qaraxan ayaa waxaa la sheegay in gudaha loo geliyay xerada ciidanka uu hogaamiyo uu degan yahay, kaasoo khasaare xooggan ka soo gaaray ciidanka sugnaa xeradaasi. wararka waxay intaas ku darayaan in qaraxan ay ku dhinteen ilaa 5 ka mid ah ciidankii ku sugnaa xerada, iyadoo taliyaha ciidanka degmada Qoryooley oo la aaminsan yahay inuu ahaa taameedkana qaraxaas uu ka badbaaday. qaraxan ayaa kala shaki ka dhex abuuray ciidamada deegaanka ee gacanta ku haya amniga degmada Qoryooley, iyadoo la soo warinayo in ciidamada u kala jabeen laba garab oo u abaabulan hab qabiil. dhinaca kale xaaladda ayaa ka sii dartay kadib markii askari ka tirsan ciidanka lagu dilay gudaha magaaladaasi, kaasoo uu dilay askari kale oo sheegay inuu ka shakiyay. labada garab ee ciidanka ayaa difaacyo ka kala sameysay gudaha magaalada Qoryooley, iyadoo dadka deegaanka ay cabsi weyn ka muujinayaan in korkooda ay ku dagaalamaan ciidamadan u kala qaybsamay habbeeleedka. arrimahan ayaa imaanaya xilli kooxda shabaab nafis ka heshay howlgalladii dagaal ee ka dhanka ahaa kadib markii bilihii u dambeeyay uu hoos u dhac ku yimid gulufka ka dhanka ahaa shabaab, iyadoo ciidamada iskaashanaya ay baneeyeen deegaano uu dhiig badan ku daatay oo horey loogu xoreeyay argixisada. si kastaba marka la fiiriyo beegsiga ciidamada iyo saraakiisha ay hadda soo badanaya, waxaana arrintan loo aanaynayaa in dowladda doorkeedii uu lumay, isla markaana aysan jirin wax cadaadis ah oo la saaray kooxda argixisada si dalkan looga sifeeyo. saaxiibayaal, waa naga intaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka. nabadgelyo.